haweenkii u haweyn hoggaanka dalkooda habka maamulka hawada sare haddaba muxuu yahay fahankiina ama qorshihiina la xidhiidha awoodda hawada sare sidii loo qaybsan lahaa qorshaha cad ee idinka yaalla musharaxa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro maamulka heshiiska hawada ay kala seexdeen Soomaaliya iyo Somaliland baarlamaankana lama keenin xogaalna uma yihi wuxuu ka koobayna ma ogi laakiin waxay u baahan tahay in haddii heshiis yahay dee horta baarlamaanka la keeno oo la ansixiyo oo laga doodo oo haddii wax Somaliland afacaya yahay in la ansixiyo haddii kalena aan la ansixin marka xukuumadda kulmiye arrinka laga rabaa horta isla su'aasha musharaxa xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi qodobkaasi wuxuu ahaa qodob lagu heshiiyey markii la waday wadahadalladii Turkiga ka socon jiray laakiin qolada koonfurtu way diideen manay fulinin innagana xaggeena wuu ka buray xaggeedina wuu ka buray ku warwareegi mayno bari baanu labada erey isdhiri oo Turkiga warqad laga saxay tii hawadana halkeedii hore laba daloo kala go'ay oo nin waliba hawadiisa wixii uu cashuuray uu ka cashurto ayaynu ahaanaynaa arrintaas laba iyo isdaba socod dambe yeelan maysa ilaahay idankiisa caalamka inaynu si qeexan u diidno in wax maydhaana oo ka hoos soo yaala Soomaaliya inaynu noqono taana mowqif adag oo cad baanu caalamka u sheegay waanan qabaan in laga garowsanayaan markaan position ka istaagno oo inaan mar dambe waxba xaqooda inoo soo maray waa ka position ka iyagu amma santa isla su'aasha musharaxa xisbiga uciid injineer Faysal Cali Waraabe kii hawadana waxa qoladii ka heshiisay heshiis ay noo soo qaadeen bay ahaayeen laakiin waxa weeye in marka saddexda way ka baxeen meesha marka waxa weeye haddaynu isku soo noqono in wada hadalo waa marka oo hore waxa la oranayaa heshiisyadii hore ee ku heshiinay horta fuliya shuruudaha oo kow noqonaya waa kuwaas baa noqonaya marka waxa weeye waa arrimaha inoo taagan